wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga Somaliland waxaa la aasaasay sanadkii 1997 kadib markii la garwaaqsaday in xaaladda deegaan ee dalku ay meel halisa marayso. waajibaadka wasaaradda loo igmaday ayaa ah guud ahaanba ilaalinta iyo daryeelka deegaanka iyo horumarinta nolosha reer guuraaga Somaliland. muddadii ay wasaaradda dhisnayd waxay ku tallaabsatay horumar dhinacyo badan sida qorista iyo hawlgelinta shaqaale ku dhow 700 oo ka hawlgala guud ahaanba gobolada kala duwan ee dalka, helitaanka gaadiid tiradiisa iyo tayadiisuba kooban tahay, furista xafiisyada gobolada iyo degmooyinka dalka qaarkood oo badankooda u baahan daryeel iyo dib u dhis, dib u hawlgelinta iyo horumarinta xarumaha kobcinta dhirta, dib u soo celinta seerayaasha qaarkood, diyaarinta xeerarka iyo siyaasadaha deegaanka, qorshe hawleedka wasaaradda iyo horumarinta xidhiidhinta iyo isku xidhka iskaashiga bahweynta ku howlan deegaanka. barnaamijkan kooban waxaynu ku eegi doonaa waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga sanadkii dhammaaday ee 2020. haddaba wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga Somaliland oo ka duuleysa muhiimadda dhirtu inoo leedahay waxaa sanadkii tagay ay beertay dhir aad u tiro badan, kuwaasi oo loogu talagalay in dib loo soo celiyo bilicda magaalooyinka, iyada oo mustaqbalka lagu tala jiro in deegaanada ka baxsan magaalooyinka lagu beero dhir kala duwan, siiba dhirta xerow dhaladka ah si loo soo celiyo quruxda deegaanka. barnaamijkan waa barnaamij iska socda oo taxana ah, maaha barnaamij aynu leenahay maanta oo kale la beeraya ama bisha dambe oo kale. waa maalin walba waa la beeraya, maalin walbana way korayaan, maalin walbana xagga kale laga guray oo dadku ka qaadanaya. marka waa barnaamij socda oo in badan soo socday intii beertu dhisnayd, laakiin imaka aad moodo inay xoog ay yeelatay dhirbeeristii oo gobolada ayaa iyagu u dhowday culays fara badan iska saaray inay dhirta bixiyaan oo beeraan oo bixiyaan. marka waa barnaamij iska soconaya barnaamijkan. dhirtu waa nolosheena, dhir la'aan waa nolol la'aan, waa cadaan markaas dhir la'aan waa nolol la'aan oo maba joogi karaysid meelaan had lahayn, maba istaagi karaysid, milcdaa ma istaagi karaysid. marka horta dhirtu waa nolosheena waxay ku tahay qaybo fara badan bay nolosheena ka qaadataa. waxay ku tahay oo keliya harkaa keliya harsanayso baleeg, iska daa midhahaad ka cunayso, iska daa hawaday kuu safaynayso, iska daa cayayaankii wax alaaliyo waxa ilaahay abuuray ku nool, iska daa waxa weeyaan keliya aad eegto harka intaad istaagto aad harsanayso keliya. daad horta midhihii gaadhin oo cayayaanka la gaadhin oo neeftaadan uu safaynayo, oksijiinkan uu safaynayo, kaarboonkan iyo adduunkan uu isu qiyaasayo markaad ka tagto harkaasoo keliya markaad istaagto waad ku qabowsanaysa. geed la'aan waa nolol la'aan. muhiimadaasaa keentay inagoo keliyana mahay caalamkao dhanba deeda beeraya, meeshaad aragtaba waa la beeraya. waa laynagaga rooyay beerista, waa laynagaga horeeya beerista waa laynagaga horeeya. waayo waxa weeyaan adduunyada horumartay maanta inkastoo iyagu ka qayb qaataan kharibaadda oo dee technology-ga nimka cusub iyo adduunyada nimka horumaraysa waxay soo saaraysaa ay wax badan ay dee maaragtay saameyn ku leedahay cimilada. haddana dee geedkaasumbaa cimiladii badbaadinaya. geedka cimilada aad arkaysa kharibantay isagaa badbaadinaya. waa ilmaha oo kale, waad ku ridaysaa siidhkii baad horta doonaysaa, siidhkii marka aad ku riddo waad biyeynaysaa, waad nafaqaynaysaa, digadiisii iyo ciiddiisii oo laysu qiyaasay baa lagu gurayaa. dad dhan baa ka shaqeeya. dabeeta geedkii oo saa u qurux badan markaad soo saarto ee lagaa qaado waxaad arkaysaa dad iska dhigtay oo geedkiiba intuu halkaa dhigtay geedkiiba dhintay. waa geed ay tacab iyo lacag iyo waqti ku baxay. ayaad arkaysaa qof intaad siisay oo kaa qaaday ayuu halkaa iska dhigayaa, halkaas milicda ku dilaysa. haddii aanad siina waxa weeyaan dhirtii baad diiday. marka caqabadii way badan yihiin, caqabado badan baad ayaa nagala kulma markaad eegto dhinaca barbaarinta dhirta. wallaahi shacabka Somaliland waxaan u soo jeedinayaa weliba dumarka, waayo dumarka wax ku kariya tamarta. waxaan u soo jeedinayaa tamarta kala jaadka kala wada duwan kala qiimaha inay ku dadaalaan inay qaataan oo wax ku karsadaan si dhirtu u badbaado. waayo waxay mustaqbal baynu ka hadlaynaa. adduunyadu waa tan isbedeshay, waa tan dhulkeenu ku noolayn sidan isu wada bedelay, baddii iyo berrigii iyo bannaankii iyo buurtii is wada bedelay. dhalinyaradii baa maalin walba hortaaganoo mas-uuliyiintii weydiinaysa mustaqbalkayagii mee, mustaqbalkayguna waa adduunyada oo maanta sidan ka daysaa. waxaa alifkan laga daayo oo dhirbeerista la badiyo. iminka dawladaha qaar waxa beera dayaarad maahay, waa la iskala tegay gacantii iyo ciiddii la isku shubayay geedkii oo dhaqan oo intaa la ogaad yaabaysa saa loogu soo tuuraya. daqiiqadii walba
درونك بهاشنا يندرون يعني تاسا أنت لو لقولي minute by minute second by second بيجيت بيريس wasaaraddu ka duulaysa badqabka deegaanka waxa ay ololo ballaaran ku qaaday dadka ku hawlan xalufinta deegaanka iyadoo baabiisay dhuldaaqsimeed si sharci darraa loo ootay kuwaasoo loo qeeytay si gaar ah isla markaasna ahaa kuwo wax manaafacaada aan lahayn. wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu waxay qaranka uga mas'uul tahay ilaalinta deegaanka daryeelkiisa iyo dhammaan inay ka hortagto wax kasta oo liddi ku ah ama dhibaato u geysanaya deegaanka haday tahay dhirtii iyo haday tahay duurjoogtiiba runtii ilaahay fadligii waxa wasaaradda runtii sanadkii la soo dhaafay 2020ka shaqo aad u badan ay ka qabatay mas'uuliyadaas qaranku u igmaday wadanka meel aan gaarin runtii way yartahay sida ka warqabtan wasaaraddu waxay ku leedahay dhammaan gobolada dalka xafiisyo shaqeeya oo dhamaantood si habsami ah waajibaadkii qaranku u igmaday u guta wasaaraduna kula xisaabtanto dadaalada faraha badan ee deegaanka lagu badbaadinayo wasaaraddu sameysay waxa kamid ah waxay dadaal weyn wasaaraddu gelisay iyadoo wasiirku ku hogaaminayso sidii loo soo celin lahaa seerayaasha qaranka xooluhu ku baxsan jireen xilliyada jiilaalka ilaa hadda 2 seere ayaa wasaaraddu xidhay iyadoo ka maalgelinaysa miisaaniyadda qaranka kii saddexaadna sanadka 2021 ayuu noo qorsheysan yahay waxaana yoolka wasaaraddu yahay in dhammaan seerayaasha qaranku leeyahay la soo celiyo laguna soo celiyo gacanta dawladda si xoolaha xilliga jiilaalka ay ugu baxsadaan maadaama aynu nahay bulsho xoolo dhaqato ah dhaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inta ugu badan uu ku tiirsan yahay neefka xoolaha aynu dabada u dhoofino waxa laga maarmaan ah in aynu ilaalino calafkiisa iyo daaqiisa iyo dhulka ku baxsanaya jiilaalka taas la ajligeed ayaa wasaaraddu dadaal runtii weyn ku bixisay sidii loo soo celin lahaa seerayaashaas si aynu u badbaadino xoolaheenaas waxa kale oo jirta qaranku wuxuu leeyahay seera kaymeediyo ilaa 7 gaaraya seera kaymeediyadaas iyaga laftooda dadaal weyn baa la geliyay sidii loo magaranaysa loo daryeeli lahaa loo ilaalin lahaa cilmi baadhis iyo daraasadna loogu sameyn lahaa afartii horeeyay oo kala ah daalo gacan libaax wagar iyo libaaxley ayaanu daraasad iyo cilmi baadhis ku sameynay si inta kale sidii loo gaari lahaana qorshaha wasaaradda ay ku jirtaa. dhuxusha oo kamid ah waxyaabaha dhibaatooyinka baangiisii deegaanka waxay wasaaraddu sanadkii tagay baabiisay godad lagu moofeynaya dhuxusha iyadoo sharciga la horgeeyay dadkii falkaasi gacanta kula jiray si loo yareeyo isticmaalka badan ee dhuxusha bulshaduna ay u helaan tamar badiil u noqotay waxay wasaaradda deegaanku cashuur dhaaf u samaysay shirkadaha keena gaasta wax lagu karsado si bulshadu ay u wada gaadho adeegsiga gaashka dabiiciga sidoo kale waxay wasaaraddu heshiis la gashay qaar ka mid ah shirkadaha gaasta si bulshada ay u gaarsiiyaan gaas jaban soo dhaafay waxa kale oo inoo qabsoomay in ka badan 290 godad lagu gubayay dhuxusha dhirta qoyan ayaa wasaaraddu baabiisay in ka badan 70 cishimooyin sharci darro ayaa la baabiyay maadaama dalkanu yahay dal saboola oo magaranaysa bulshadiisu dhaqaalaheedu waanu sareyn inta badan householdskeena ama guryaheena waxa lagu shitaa waa dhuxushaas bariga hore geed qalalan baa laga soo jari jiray maanta waxaynu ognahay dhuxusha in dhirtii qoyaneed la jarayo oo laga soo shidayo markaa kadibna lagu isticmaalayo guryihii kaba sii darane ay iminka bilaabmeenba farsamooyin kale iyo faldambiyeedyo kale oo inta dhuxushii la jaro oo dhirtii qoyaneed la jaro loo bedelay ganacsi wadamada dariska runtii loo dhoofiyo marka bulshadeena dan yartaasi ay uga maarmaan oo uga guuraan dhuxusha una guuraan gaasta dabiiciga LPG-ska sanadka dhow waxa ilaa 5400 oo haamood ayaa wasaaraddu ay qaybisay oo shooladihii wata oo bulshada loo qaybinayay
waxaana naga caawiyay runtii oo aan ka kaashanay UNDP iyo Telesom sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono barnaamijka dhiirigelinta ee lagu dhiirigelinayo sidii bulshadu uga guuri lahayd dhuxusha uguna guuri lahayd gaasta dabiiciga ee wax lagu karsado waxaynu soo iibsanay tamar dhan ama gaasta LPGs kala dhaha ku soo iibsanay bulshada Soomaaliland ku iibsatay 14 milyan 156 oo dollar 14 milyan iyo 156 oo dollar ee lagu iibsaday gaasta waxa ay badbaadisay dhuxul dhan milyan iyo 665 oo kiish oo dhuxul ah oo la iibsan lahaa ayay runtii ay badbaadisay taasina waxa weeyaan waan ku dhiirigelinaa bulshada inay sida ay sii wadaan oo ka maarmaan dhuxusha oo u wareegaan tamarta LPGs ka ama gaastas wax lagu karsado maadaama ay ka nadiifsan tahay maadaama ay ka jaban tahay dhuxushaas milyan iyo 665 kun ee kiisha la iibsan lahaa hadii aanay gaastaasi jirin waxa lagu soo iibsan lahaa 19 milyan 586 kun oo dollar waxa markaa bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan jeebkooda ku kaydsamay ama u badbaaday 5 milyan 429 kun oo dollar runtii 5 milyan 429 kun oo dollar oo dhuxul iyo damba siisan lahaydeen ayaa jeebkiina ku badbaaday waxaad kale oo badbaadiseen markaas deegaankiiba badbaadiseen waxaad badbaadiseen nirtiiba badbaadiseen waxaad badbaadiseen dunyadiiba badbaadiseen waxaad badbaadiseen noloshiina badbaadiseen marka aad gaasta iibsateen si kor loogu qaado wacyiga bulshada dadkana loogu dhiirigeliyo dhowrista iyo ilaalinta deegaanka waxay wasaaraddu gobolada dalka ka fulisay wacyigelin ku saabsan deegaanka taasoo ku taxalluqday sidii bulshada loo bari lahaa sharciyada deegaanka waxa la sameeyay wacyigelin runtii ballaaran oo gobolada dalka dhammaan laga fuliyay wacyigelintaas bulshada lagu baraarujinayay waajibaadka ka saaran ilaalinta deegaanka iyo sida deegaanku hadii uu naga baaba'o bulsho ahaan ay nolosheena waxay muhiimsaga bedeli doonaan oo nolosheenu aanay u sii jiri doonin deegaanka oo ugu horeeya geedka qoyan ee la jarayo hadii aan wax laga qaban xoolo inoo noolaan maayaan hadii xoolahaas laf dhabarta oo dhaqaalaheenu inaga baxaana bulshadeenu runtii mustaqbalkoodu mugdi ayuu noqonayaa mana sii socon doonto nolosheenu marka dhammaan bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa lagu wacyigeliyay iminkana aanu ku baraarujinaynaa inay qayb ka noqdaan dadaalada loogu jiro ilaalinta deegaanka iyo daryeelka ee lagu hortegayo dhuxulaysiga xaalufka iyo xirmooyinka sharci darrada ah ee dhulka lagu hayo waxa aanu runtii wacyigelinta ku soo bandhignay shuruucda iyo xeerarka qaranka uga yaala dambiyada ka dhanka deegaanka qofkii lagu helo ama lagu qabto waajibka sharciga ee la marsiinayo ayaa runtii lagu baraarujinayay intaanu joognay wafti inta la eego yiraahdo deegaanka ama heermiga ayaa ka socda idinku ban ugu horeeya gelinta ama waftiga waa inoo bah anigu waxaan soo gaaray iyadoo la yiraahdo ninka ugaadhsada cimrigii fakri ma waayo ninka ugaadha ku dadan fakri unba laga qaada iyadoo culimadu tidaaha ninka ugaadhsada markay isiraaho naftuubaa kaa baxaysa oo waad baktiyaysa ayuunbuu sharcigu ogolay inaad ugaadhsato haddaad iskaga tirto oo waa ugaadhsanayaa awal culimadoodaba waxay tiri ma bannaan maantana inamadu si ay noo sheegeen waa sidaasu waxaan idiin sheegayaa duurjoogtu inay hantidayada ka mid tahay waa riseef ilaahay meesha noo dhigay marka waxaanu nidhaahnaa mararka qaar waar way idin soo magan gashayba tani meelo bariga naga xiga dawo haddii la yidhaha xabad ku arki mayso marka waa mahadsantihiin haddii intaa noogu biiriseen waa mahadsantihin annagoo cid ilaalisa baa jirtaba ma aanaan islahayn waa mahadsantihin intaa aan noogu darteen waanu qaadannay waana sii durkinaynaa waanu gaarsiinaynaa reer miyiga
iyo tuulooyinka aan jaarka nalnahayba qorshe hawleedka wasaaradda iyo horumarinta xidhiidhinta iyo isku xidhka iskaashiga bahweynta ku howlan deegaanka. sanadkii hore qorshayaal ayaanu lahayn dib u eegid baan ku soo sameynay waxay u fileen runtii alxamdulillah iyadoo caqabado badan jiraan qaranka soo food saaray inay u fileen sidii aanu runtii ugu talagalnay sanadkanna saa la socoteen waxaanu diyaarnay qorshihii sanadka iyo qorshihii 5 sano strategic plankii ahaa waxaanu rajaynaynaa runtii qorshayaashaasuna inay noo fuli doonaan insha allahu tacaala sanadka 2021 Somaliland sanadihii ugu dambeeyay waxa si aad ugu soo kordhayay ugaarsiga sharci darrada ee duurjoogta si haddaba arrintaasi looga hortago waxa sanadkii tegay ay wasaaradda deegaanku gacanta ku soo dhigtay dad si sharci darro uga ganacsanayay duurjoogta iyadoo dhammaantoodba la horgeeyay hay'adaha cadaaladda. waxa duurjoogto ka duulaysa waajibaadka shaqo qaran ay u aasaasan tahay waxay dadaal fara badan gelisay sidii duurjoogta loogu ilaalin lahaa duurkeeda waxa ay howlgallo badan ka gashay iyadoo oo kaashanaysa isuduwayaasha gobolada kale ah gobolka Maroodi Jeex gobolka Awdal gobolka Salal gobolka Sool gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer oo runtii laga soo badbaadiyay noocyada kala duwan ee duurjoogta waliba nooca loo yaqaan hareemacadka oo ah mid ka sii dabar go'aya geeska Afrika gaar ahaan muxuu ahaa intan geeska sida warbixinada lagu daabacay marka runtii waxaanu soo qabanay sanadka 34 xabbo oo nooca hareemacadka loo yaqaan waxa kale oo ay muxuu ahaa iyadoo waaxdu waajibaadkeeda gudanaysa ay muxuu ahaa ay kale oo ay soo ururisay oo ay muxuu ahaa ka ururisay duurjoogtan la haysto muxuu ahaa loogu haysto sida goobaha guryaha iyo hoteelada 39 noocyada kala duwan ugaadha nooca loo yaqaano ayaanu ka rarnay gobolka Maroodi Jeex oo aanu geynay goobta lagu xanaaneeyo Debis runtii howlgallada intii ay wasaaraddu ku jirtay waxa ay gacanta ku soo qabatay dadkii ficilada kullidka ah kula kacayay duurjoogta noocyada kala duwan waxaanu sharciga horgeynay oo maxkamadaha ku shuqul kale aanu horgeynay kadib markii lagu soo qabtay iyagoo sifo aan sharci ahayn uga ganacsanaya muxuu ahaa duurjoogta gaar ahaan nooca loo yaqaan hareemacadka 5 eedaysano kala duwan oo lagu xukumay 4 kamidana lagu xukumay misana sanad halka mid kalena lagu xukumay 4 sano waliba 4 sano ay ahayd qof caadaysta oo waxa weeye marar kala duwan lagu xukumay. geesta kale iyadoo laga duulayo daryeelka iyo xanaanaynta ugaadha waxay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga Somaliland dhismayaal ka hirgelisay deegaanka Debis oo ah goob loo asteeyay daryeelka iyo ilaalinta ugaadha sidoo kale waxa ay wasaaraddu dhisme loogu talagalay duurjoogta sida sharci darrada looga ganacsanayo ama dadka shicibka ay gacanta ku hayaan ay ka wadaa deegaanka Geed Deeble waxaan kaloo wadnaa Geed Deeble inaynu ka fulino saraha Geed Deeble 3 mashruuc oo kala duwan mid waxa weeyaan waxa la yiraahdaa cheetah sanctuary waxa xarun lagu xanaaneeyo ama lagu daryeelo xayawaanka loo yaqaano hareemacadka oo dunidu isla qirtay inuu yahay xayawaan si dabar go'aya bulshadeena runtii aanu aad iyo aad uga wacyi gelino ilaalintiisa iyo daryeelkiisa waxa kale oo iyadana laga sameyn doonaa meel beera oo leeyahay botanical garden oo dhir kala duwan leh oo bulshadu ku dalxiiso doonto iyo national mustaqbalka oo dhow oo aan filayno in iyadana laga sameyn doono national park anagoo kaashanayno qolo African Parks leeyahay oo wada hadal inoo socdo mashaariicdaasina waxa weeye waa mashaariic runtii kamida kuwa lagu ilaalinayo ama lagu soo celinayo deegaanka iyo daryeelkiisa waana mashaariic runtii wax weyn ka tari doona horumarka dhaqaale ee qaranka bulshadana waxaan runtii u soo jeedinaynaa inay isbarbar taagaan oo ku gacan siiyaan wasaaradda iyo dawladda hawlahaas lagu badbaadinayo lagu daryeelayo deegaanka sanadkii ugu dambeeyay 2020 iyo sanadkan 2021 waxa shaqooyinka halkan laga qabtay fangareysa dawladda Somaliland sanadkii hore waxa loo qabsoomay sanad kasta shaqadaasi waxay tahay 5 kuwaatan
oo xagga construction-kana amba mashruucan shaqadana ka noqonayso 5 phase shantii hore phase waxaan sameynay inay dhowr xerooyin oo loogu talagalay ugaadha halista ah ee miciyaleyda ee khatarta xoolaha noolna khatarta ku ah dadkana khatarta ku ah oo ay ka mid yihiin harimacadku oo aanu sameynay laba cabirkoodu waa 8 meter square waxay leeyihiin gelatin doors oo macnaheedu yahay albaabada inay xayawaanku markuu khatar yahay looma geli karo waxa la sameeyaa isoo dabada jooga ayaa laga furaa halkaas hilibkiisa laga siiyaa halkaas biyo laga siiyaa halkaas dawooyin laga siiyaa haduu dawooyin u baahan yihiin kadibna albaabkiisa loo sii daayaa waxa kale aan xerooyinka ku sameynay inay meelaha had ah oo loo sameeyay in uu xilliyada roobka amba xilliyada dhaxanta amba xilliyada dabaysha joogta amba cadceedda ka galo xayawaanku waxaan kale oo aanu sameynay xero inay 5 qol ka kooban oo dushana ka dedan hareerahana shabag kaga xiran dhinacyadana bilowd aanu kaga xidhnay oo aanu u sameynay gududanaha xayawaankaasi harimacadka iyo kuwa kale ee la dhoofiyo ee ganacsiga sharci darrada lagula kaco waxa qaarkood laga soo taariibiyaa ama ay ka soo tallaabaan xadka u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana iyadoo arrintaasi wax ka qabashadeeda laga duulayo dabayaaqadii sanadkii hore lagu qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya shir lagaga hadlayay sidii Soomaaliland iyo Itoobiya iskaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada ganacsiga sharci darrada ee duurjoogta shirkaasi waxa ka qayb galay dhanka Soomaaliland wafdi balaaran oo hogaaminaya gasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Cabdinaasir Axmed Xirsi halka dhinaca Itoobiya ay goobjoog ka hayeen madaxweyne ku-xigeenka deegaankaasi oo shirka furay wasiiro iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo saraakiil ka socday dowladda federaalka Itoobiya waxa shirkaasi la isku qaatay in meel lagu soo wada jeesto la dagaalanka ganacsiga sharci darrada ee duurjoogta